بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. maanta waxaan ka hadlaynaa waxa loo yaqaano fungal infection oo gala meelaha laabatooyinka iyo meelaha qarsoon ee private-ka loo yaqaano. kuleyla yimi kuleylahana aad iyo aad ba u dhibaato badan yahay oo arrinkaasi u bataa dumarka uurka lagu ku badan yahay waayo jirka waa qaleylkuna dhibaato badan buu leeyahay. xataa ragga waa ku dhacaa meelahaasi waxa kasoo baxa finan yaryar waa meelaha waxa loo baahan yahay mar walba qalalaadaan in nadaafada loo hagaajiyo in la xidho kastimooyin cotton ah in mar walba biyo yar oo diiran lagu dhex fadhiisto oo milix lagu dhex darsado. milixda badda aad iyo aad bay u wanaagsan tahay maasha allah. waxaa kaloo idiin hayaa tani waa coconut oil waa waxa ugu badan habeenkii baad ku daynaysaa waad marinaysaa maasha allah saasaad u marinaysaa 7 habeen ilaa meelahaas ilaa markaad nabarka isku aragto habeen walba waad marinaysaa iyada habeenkii baad ku daynaysaa maasha allah. waxaa kaloo idiin hayaa tani waa huruudda in yaro biyaad sidaa ugu qoynaysaa saa markaad ugu qoyso huruudda ay sidaa kuugu qoydo waad marinaysaa meesha finanku kasoo baxeen oo dhan waa antiseptic waa antifungal waxa weeyaan iyadu waa waxyaabahaas ay dawo ka tahay maasha allah. waad marinaysaa 20 minute baad ku daynaysaa in yaro midabay leedahay midabkana waxba male waa maydhmaya mari eriyada ku daa 20 daqiiqadood ku daa insha allah haddii ilaahay yidhaa 20 daqiiqo meelaha ku daa mar walbana inaad adigu naftaada ka shaqayso aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. 2 goor maalintii mari mar galabtii ah iyo mar habeenkii ah mari 20 daqiiqo kadib ka maydh maasha allah. dawada kale idiin hayaa waxa weeyaan baking soda ciyaar maaha dawu ka yahay qaybaha waxaynu bahalkii dawu ka yahay cuncunkaas oo dhan dawu ka yahay isagana saasaad u marinaysaa eriyada aad ku tuuntay oo dhan baad marinaysaa maasha allah. ciyaar maaha laftirkiisu aad iyo aad buu u wanaagsan yahay hadhayalsanin. baking sodaha laftirkiisu waa dawo 2 goor baad isaga laftirkiisa marinaysaa maasha allah. waxaan doonaynaa in aad waxaan kolba mid baad isticmaalaysaa haddii huruuddu markiiba kuu shaqayso waa alxamdulilah haddii markiiba aad coconut oil-sha oo number 1 ah ay kuu shaqayso oo aad mar walba habeen walba intaad mariso ku seexato waa alxamdulilah. haddii ay huruuddu kuu shaqayso waa alxamdulilah haddii huruuddu kuu shaqan weydo oo baking sodahani kuu shaqeeyo waa alxamdulilah. kuwani waa neem water neemku waa geedaha u baxa dalka India ka yimaada kulley anigu wadankeeni kuma arag isaga waad halkanaad ku shubanaysaa waad garanaysaa waxaad ku samaynaysaa markaad qaboojiso waad ku maydhaysaa eriyada cuncunku yahay ayaad ku maydhaysaa neem waterka kaasaad ku shubanaysaa waa kii suuliga lagu galayay kaasaad ku shubanaysaa waad saasaad ugu istijoonaysaa maasha allah. tuugna ma xadataa laftirkeeda wabanka u weyne loo hayo haddaad hooyo tahay weliba dumarka mid ka weyne ma jirto oo aad heli lahayd waad garanaysaan waad arkaysaan baan u malaynayaa waxaa halkaa ku jira waxa weeyaan yogurt ciyaar maaha yogurtku waa dawo weliba hooyada bakteeriyada fiican buu dhaliyaa bakteeriyada fungalka la dariirtuu dhaliyaa ciyaar maaha. haddaad kaas in yaroo malaba ku darso cun meeshaad ka gaadhaba kafirka isaga mari xataa meesha ku xanuunaysa laftirkeeda haddaad mariso saa u yar mariso waxba kuma yeelayo laftirkeeda oo isagu dhibaato kuuma geysanayo. fungalka infectionka aad buu ugu wanaagsan yahay marka kan hooyo oo dhan meel kastay joogto dumarka waa dawo. qofku bariis cad buu ku cuni karaa wuxuu ku cuni karaa raashin kale ciyaar maaha marka haddaad doonayso inaad kan dawo weeyaan cuntadaada ka dhigo aroortii cun barqadii cun markaad yar gaajooto halkaad nus saaco kale ka raadsan lahayd isaga ka raadso maasha allah. miskiin magac lagama aha yogurtku waa dawo waa ciirteennii hooyo kasta qof kasta ciirtaa meeshu ka raadsan karo waa dawo dawana qofkii garanayuunbaa garanaya waxaan la isku daweeyaba halkana laga keenaa meel kale lagama keeno maasha allah.
waxa weeyaan adigu haddaad hooyo tahay waxaad u baahan tahay inaad ciirta had iyo jeer cunto, inaad dharkaaga ilaaliso, inaad ugu dambeyntii waxa kale aan idiin hayo ee aada u wanaagsan waa tan waa dacartu ciyaar maaha, meelaha waad marinaysaa, antiseptic weeyaan, waa qaboojinaysaa, dhulkaasoo dhan bay qabow ka dhigaysaa, qabow bay ka dhigaysaa. waa wabanka ugu weyn. iyada iyo coconut oyashu waa number 1. kuwan kalena waa haddii aad baking basoodaha iyo labakin, iyada iyo tan ayaa ugu sareeya marka loo eego labadooda aad iyo aad. laakiin huruudda laftirkeedu waa lagama maarmaan, waayo huruudda laftirkeedu waa lagama maarmaan. aad bay u wanaagsan tahay baking soodaha, waxaasoo dhan maasha allah. wax la wixii antiseptic ah aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin. tuugna ma xado maasha allah. haddii aad waxa weeyaan aad inuun isku aragto meelaha qarsoon oo kaa galo fungalka infection fungalka uu kaa galo, had iyo jeer waxaad ku arkaysaa cascasaan, finan yaryaroo soo baxa, ama cuncun aan dawo lahayn oo aad saa un isku cuncunayso. maasha allah, waxyaabaha aan idin tusay oo dhan baa u dawo ah. tuugna ma xado, magac miskiin lagama aha. dawadan laga daba cararayo waxaan laga sheekaynayo waxa ka wanaagsan waxa naturalka ah ee dawada ah. waxaasoo dhan waxaan u galay inaan idinka idin tuso waxa dawada ah. hooyooyinkan kaba soo gashaday, idinkuna inta qaybtiina ah kasoo baxa. maasha allah, meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegayaa wabilaahi towfiiq. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.